ila daawo muuqaalkan. boqolkiiba boqol waxaa leedahay ciidanka wacyiga bulshada Jubbaland ee u soo dhiibay xoogga dalka Soomaaliyeed maanta laga bilaabo inaad tihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku soo biiray marka hore Soomaali u baad ahaydeen waa ciidanka maamulka Jubbaland oo si rasmi ah mar kale tiro boqol ah ay gaaraydo isku soo dhiibeen ciidanka dawladda Soomaaliya iyo waliba soo kale maqaam sare oo loo soo dhaweeyay. Haddaba xaggee ka soo tageen ciidankan? sidaad u jeedaan doomahan ayay ku imaadeen. xaggee ka imaadeen? sidaas ciidanku xiriir oo ula soo sameeyeen bartan aan kugu faahfaahin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay ee uu ku soo gaaray muuqaal, fadlan like gareeyo, share gareeyo, meel dheer nala gaarsiiya. aragtiin qaybta hoose faalada commentiga ayaad inagula wadaagi kartaan. waxaan sidoo kale idinka codsanaynaa haddii muuqaalka ama bogga oo markii ugu horeeyay ee uu ku soo gaaray uu yahay inaad follow na soo dhahdo ama markaasi nagu soo biirto kana mid noqoto saaxiibadeena sida maalinlaha ah ee wararkeena halkan ugula socda. way soo dhawaada saaxiibayaal. maamulka Jubbaland ee uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam ayaa waqtigan u muuqata in hadalkii shalatoole ay markaasi ku sheegeen ciidamo halkaasi jooga in aysan jirin ciidan isu soo dhiibaya misna markaasi ee ka goosanaya maamulka Jubbaland aysan jirin ayaa u muuqda waqtigan la joogay inuu yahay mid been abuur ah oo ciidanku markaasi qudhoodu ay been ay ka sheegeen ciidanka sida nafurnimada leh dawladda Soomaaliya ugu soo biiraya iyada oo waqtigan la joogay ciidamo fara badan waliba horay ay markaasi iskugu soo dhiibayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyaga oo qorshuhu uu yahay sida ay sheegayaan inay markaasi amniga qayb weyn ay ka ahaadaan ama ay ka sugaan ama doorkooda ugu muhiimsan ay ka qaataan dagaalka ka dhanka ah ee markaasi dalka looga sifeynayo kooxda aas iyo waliba sidoo kale wax kasta oo weerar ku noqon kara dawladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa waqtigan u muuqda in uu xaaladda ay ku sii xumaanayso ama ay ku sii cakirmayso waqtigan la joogay maadaama si weyn markaasi ay ugu soo tagayaan ciidamada waa markaasi ciidanka maamulkaasi joogay iyada oo waqtigan la arkaya in si weyn markaasi ugu soo biirayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayna sheegayaan koox kasta ay u timaada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay qayb lixaad ay ka qaadanayaan sidii looga hortagi lahaa dadka diidan misna ka soo horjeeda in dalka doorasho qof cod ay ka dhacdo waqtigan la joogayna diyaar ay u yihiin inay kaalin lixaad leh ay ka geystaan doorkooda ugu muhiimsan Soomaalinimada ay ugu qaadanayaan. ciidanka ayaa afkooda ku qiranaya sheegaya in ay diyaar ay u yihiin ama markaasi ay ka badan tahay Soomaalinimada waqtigan la joogay aanan loo baahnayn in markaasi qabiil ama qabaa'il dalka markaasi la isugu difaaco oo dadkana la isugu geeyo. arrintan ayaana ciidanka ee sida weyn markaasi loogu soo dhaweeyay iyagoon markaasi ku imaadeen doomooyin kala duwan oo waqtigan la joogay in ciidanka si wanaagsan ula macaamilayaan. waxaa sidoo kale xogta aan helayna ay sheegaysaa in dib u habeen lagu sameyn doono dhammaantoodna la geyn doono meelaha markaasi sida weyn ee Axmed Madoobe iyo xulafadiisa isku aruurinayaan qayb lixaad ay ka geysan doonaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u taagan sidii uu mar kale ugu difaaci lahaa dalkan ama kaalin lixaad leh ugu geysan lahaa tan iyo waliba xilligii khilaafka culus ee kala dhaxeeya dawladda iyo maamulka Jubbaland ee la arkayay in ciidamo aad u fara badan ay isaga soo dhiibayaan ama ay ka soo tagayaan iyaga oo qorshaha ugu weyn uu u yahay inay markaasi ku soo biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dalkan ay dhinacooda ay ka difaacaan. waxaana sidoo kale jira warar kale ee sheegaya in Axmed Madoobe waqtigan la joogay uusan markaasi waxba la joogin oo xaalad ku cakiran tahay oo dawladda ugu dambeyn uu noqon doonto qofkii uu u soo cagaxeeto ama markaasi u soo gogol dhigta. wixii warar kale ka soo kordha ciidamada halkaasi iska soo dhiibaya khilaafka culus maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ama dawladda dhexe ee Soomaaliya bartanaheedu kugula wadaagi doona si aysan ku sheegin macluumaadkeena iyo wararkeena. waxaan ka dalbanaynaa inaad muuqaalka like gareyso, share gareyso, meel dheer nala gaarsiisin. mahadsanidin boggana ku soo biira.